أنا مجاعي وأحمد علي عبدي وكم من الدرولين بجاج كحيسو أرتم قلبت وحرجينا أن نتيجة في عن الصومالي حق إذا الله صديعيو بدل قدر المرة الوجودية قلبت وحرجينا ونتيجة في عن إنه سبب حذا وأن حلو كسيح إن شاء الله مرة بدأ أنا جالس كده وحق بقولين هاي مرة بدأ أنا حق بقولين هاي وحنا الوجودية أنا هنا قدر عتاين عالم كوجهن بدأ سمع رجينا أنا قلبت عدالة إنه هيديس إن شاء الله. ويا ولد مقعد جلوبال عاد أركض على كل عن كمان كمان أي سجى. بسم الله الرحمن الرحيم مقعد هو مرق أحمد جودة جوان كمان تكسر بحثون محكمة عالمية أي سجى وخون نقضنا ضوء اللي مسد الرجينا جوان لقوا وضع فرحة ومدة الصومالي لما أنتوا كوضع فرحية waxaana la yiri sidoo banaan bagaari laba nin ka wada qosliso oo kulli bagar yani labada dal mid ay raacay doonto waxaan u rajaynaynaa in ay raacdo Soomaaliya hadoo leed maanta Soomaaliya waxay uga dhigan tahay laba munaasabood way tahay waa mid koowaad sida wada rajaynayno 99 in yani dacwadda badda loo qumi doono yani Soomaaliya iyo 12 Oktoobar oo ah maalinkii la aasaasay calankeena quruxda badan oo ay maxay cirkaas quruxda badan la aasaasay sidoo kale ay u dabaaldegayna labada dabaaldeg maanta Soomaaliya isku soo aaday waa nasiib xaq ah inuu markaa waa maasantii wadreemi kartaa Kenya waxay uga baxdo waxba isku maaysanaysa marka waxaan rajaynayaa insha Allah Soomaaliya inay guuleysato rajaynaya haduu Ilaahay idmo Soomaaliya dad xaq ku taagan waa dadka markay xaq ku taagan yihiin ma aragtay ay guuleysanayaan Ilaahayna garab siin doona insha Allah maanta magaalada Juliet sida uu yahay shucuurta la dareemayaa yani go'aanka la fuliyo munaasabad kala jirta calankii bal dareenkaas magaalada waad soo martay waxyaabay aad aragtay maxaa kamid ah wallahi magaalada jawiga maanta aad u wanaagsan yahay oo ka duwan yahay jawiyadii hore sababtoo ah go'aanka la filan karo waa go'aan ma aragtay aan wada ognahay go'aan farxad leh go'aan ma aragtay aad u qiimo badan Soomaaliya ha guuleysataan leeyahay wallahi dawladda federaalka Soomaaliya shirar badan ay waawileysaa oo ma aragtay loogu dabaaldegayo waan ka qayb galinaa insha Allah go'aanka aan aad ugu faraxsan hadii ma aragtay go'aanku soo yeerana ما شاء الله Soomaaliya oo dhan way ku farxi doontaa hadii Ilaahay yiraahdo Soomaaliya ha guuleysato Soomaaliya ha israacdo insha Allah والله horta waan dhawahay markuu ugu horeysa waxaan leeyahay horta ICJ maxkamadda maanta dacwadda waxay ku dhaw waxa la filinayna horta waxaan filinaa waa guul magaci in ay anigu aan leeyahay leeso siiyo magarad Soomaali xoolaheeda nin xoog iyo awood ka qaado kara malaha haday ICJ jiri laheynata maxkamadda adduunka haday jiri laheyn ya barigu waxiga maanta waxiga waa soo dhacsan lahaa sababtoo ah Soomaali xoolaheeda lagama qaado karo magarad baddaas ayada haday leedahay meesha u yaalo linki shalay maanta gurigaadi dhinacan ana kale oo ku dhahay dhinaca adiga laheed ana kale dhinaca doo ku dhaho oo aad u yeesho bari dambana guriga dhan oo kala wareega ma garatay marka anu Kenya inay guri igala wareegayso inay badda ila wareegayso ma aaminsani ya maanta haday Soomaali waa israacayda qabiil si walba wadanka la isku hayo laakiin haday dalka sheegano soo faragashato kulligeen waa israacay lamada jifi is dagaalsanayeen hataa waa wada heshiiyeen waa israacayaan marka waxa fiican guulaan rajaynaynaa insha Allah inaan ku guuleysan doono ay baddaas ay Soomaali ay leedahay ma garatay badda inay Soomaali ay leedahay Soomaaliya gisgacan qabta insha Allah waxaan ugu tagayaa wabillahi tawfiiq wa ta'ala aan la soo Soomaaliya tootos hees waxa ogo guud cadaa wuxuu yiri
nin hadduu gadaran yahay gogoshiisa kumalide waaligiina guul male waaligiina guul male ugu guud caddaa wuxuu yidhi nin hadduu gadaran yahay gogoshiisa kumalide waaligiina guul male waaligiina guul male geesiyadu darwiishkuna geeri kama baqaane waa gowolmadiyo dalkoo lama u kala go'a saada cali warsame waxay tiri nin hadduu gardaran yahay gogoshiis kumalide waaligiina guul male keniyo waanaga gardarantii bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xuseen maanta go'aanka laga filanayo waxaan rajaynayaa waa guul iyo farxad maanta waa maalin farxadeed Soomaali gaar ahaan Soomaali farxadeed weeye mawduuca badda markaan ka hadlo baddu waa badeennii ajnimi uma ogolin ilaahay abuurato kale uma ogolin waxaan rajaynayaa meel kastoo Soomaalidu joogto in ay isku duubnaato gacmaha is qabsadaan dalkooda ay difaacdaan ajnimi la iska dhiciyo waxaan rajaynayaa guul iyo farxad gaar ahaan maanta aniga farxad bay tahay waayo badaydii alla i xalaaleeyay siiyay ayaan hadana dib u soo dhacsaday alxamdulillah rabbil caalamiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta maanta maalinta calanka waaye dareenkeyga haddii aan soo koobo oo laga filan karo maxkamadda ACJ ama loo yaqaano afka Hollandeeska magaalada Hague ama Den Haag waxaan ka filaynaa insha Allah inay xukmiso Soomaali ay u xukmiso maadaama ayisha Kenya ay ka soo qayb gali weysay waxaan aniga qabaa in ay sheeg loo xukmi doono Soomaaliya waxaan horta aad ugu faraxsanahay sidii Soomaali maanta ay iskugu soo baxday wadada dabka maanta farxatinta aad iyo aad waxaan aniga hadda aad u dabaaldegoyaa xukunkan sugoyaa galabta oo ay dhici doonto 10 ilaa 9 saac ilaa 9 marka fikirkeyga waa intaas aniga intaasaan ka dhiibtay magaceygana waa Fahad Cabdi Kulmiya la yiraa ninkii yimid Faransa reer Paris waa salaama aday arkaan waa yaqaanaan waa buulo ni salaamayo